nabad ku waara wada noolaado 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 nabad ku waara jaaliyadda Somaliland ee dalka Norway waxa kulmiyay urur guud oo lagu magacaabo SWO kaasoo labadii sanaba mar la doortay cid hogaaminaysa sida darteed waxa ka dhacay magaalada Oslo shirweynihii ururka jaaliyadda kaasoo ay ka qayb galeen xubnaha ururka shirweynaha jaaliyadda waxa lagu doortay gudoomiye cusub oo hogaamin doona jaaliyadda labada sano ee soo socda haddaba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan sidii doorashadu u dhacday iyo sidii shirweynahaasi guud ahaanba uu qabsoomay يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الأيام الدراسرين يبتع إلهي مركا هنتي قفكي أي أقرنو إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أقره waxaan ku rajaynahay inuu noqdo qof amaanada sideeda u gudta hadii kale wuxuu noqonayaa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adduunyo aakhirada la xisaabtami doono Ilaahay waa kila subhanahu wa ta'ala inna Allaha ya'muru an ta'du al-amanati ila ahliha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amrayaa amaanaadka inaad ehelkeeda u gudataan xadiiskii kalena waa kiiha fa'addi man itamanaka qofkii ku aamina waa inaad amaanadiisa u guddaa marka runtii amaanada culays bay leedahay qofku laakiin hadduu ka soo bixi karayo og yahay runtii waa inuu markaa uu qaban karaa marka insha allahu tacaala ilaahay khayr hayna waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryayna wax wanaagsan rabbana aatina fi dunya xasana wa fil aakhirati xasana wa qina adhaban naar sala allahu alaihi wasallam sheekhu wuu mahadsan yahay ilaahay ka jasaaysiiya aayadaha qur-aan iyo wacdigaba innagana ilaahay haynagu anfaco waxaan jeclaa marka hore inaan idiin sheego musharaxiinta magacyadooda waxaana ka codsanayaa musharaxiintu inay istaagaan marka ay magacooda maqlaan si ay dadku u arkaan Rashiid Ismaaciil waa musharax waana gudoomiyihii waad garanaysiin Rashiid Saciid Weerar علي سليمان محمد صدح راسي يا مشرحين وكلا دوراني سند ما انتوا وحضرينيسي دوني يعني نمرو ميكروفون كوه ليتيو عبد الحكيم سوري بسم الله الرحمن الرحيم هاي شرعيا أي ما تعرفون كوه إنه urur ku dhaqmayo waxa la sameeyay bishii June 2002 ilaa intaana wax badan lagama bedelin ama lama taabanba 2007 la isku dayay in wax laga bedelo oo la sameeyay qowli qoraal kale tina ma isugu gelin la ansixiyo marka waxaan u soo horumarinay oo ay noqotay in ansixiyo lagu horeysiino waxa weeye wixii dhammaan guddiga ku shaqeynayeen haddii aanu sharci ahayn oo la ansixin oo wax laga bedelin guddigu waxay ku shaqeynaysaa wuxuu noqonayaa sharci qabya marka sharcigii wixii naga qabya lahaa inaynu qabya tiranno haddii marka guddoomiye la doorto la kala yaacaya marka waxaanu ku horreysiinay marka in wixii ka bedel halkan lagu sameeyo sharcigii hore ee saxda ahaa ee noo qoraa marka waxa ugu horeeya qodobkan taabanay ee sixidda iyo wax ka bedelka aada ama ku daridda ah qodobka afraad oo ku saabsan dhaqaalaha ururku meelo ka soo galo waxaa ku qoran halkan in dhaqaalaha ururku ka soo galo infandeer taatan iyo staatan dawladda iyo waxa ku qoran UBI marka UBI hadda waxa kama soo galaan waxa lagu bedelay halkii UBI indi marka waxaan qaadanaynaa halka lagu bedelayaa indi marka waa sixid weeye waxa kale oo ku jira inay lacagtu biliyaad ka soo gasho internet cafe iyo maqaaxi iyagu mustaqbalka way iman doonaan oo way iskaga jiri doonaan laakiin waxa ka maqan wixii ugu muhiimsanaa waa xubnihii marka halkan waxaan ku darnay in ay ururka dhaqaalihiisu ay kasoo gelayaan xubnahana oo maintenance contingent iyo wixii kale loo baahdo ee xubnaha looga baahan yahay
inuu ururku dhaqaale halkaa kasoo galo ha intaasna xubnaha ururka inuu dhaqaale kasoo galo markaa qodob weeye kaasi intaas xiritaanka iyo halka aan ku darray waxa ugu codaynaysaan haa iyo maya gacanta taagaysaan hadda wey markaa maxaa ugu codaysaan markaa inaynu halkaa dhaqaalaha ku darno xubnaha in ururku maaragtay dhaqaalaha lagu daro ereyga xubnahana in dhaqaale kasoo gelaya ururka lacagta madalku ma kusoo dhacdaa iyo drifts konto wax layaa oo lacagta mashaariicda ay kusoo dhacdo marka horeba oo laba konto sharciga ururkuna waxa weeye labada konto yeelan karaa konto saddexaad ma yeelan karo marka kontadan contingent kusoo dhacayso iyo wixii kale xubnaha ururka marka lagu yidhaha 500 soo bixi meel aad ku diri karto oo iyo dad aad aamini karto inay mas-uul ka yihiin oo guddidu hadday isqabsato ama dhibaato kaleba dhacdo aad taa maxaan halkeen lacagteeda ku shubay taasaanu diidaynaa markaa si lacagtu aamin noqoto oo ay dadku u aaminaan oo xisaabiyaha ururka iyo guddida odayaashu marka halkaa wax ka wada saari karaa haddii guddidu wax uga baahatana xisaabiyaha iyo guddida odayaasha markaa meesha joogunba ka saari karaa ma yani koonto xidhan maaha waa koonto wax laga saari karo ururku shaqadiisa lagu fulin karo wey okay ma waxaadunba way istiga ku go'deeya qofka diinta ma doonayo ogaani okay ma saxay gacanta kor u haya oo muddadii aan la gaadhin guddida doorashada ayaa markaa soo qabanaysa shirweyne aan caadi ahayn waxa weeye haddii khilaafi wax yimaadaan oo ay noqoto in la soo dedejiyo shirkii 35 xubnood soo codsadaan waxa ay guddida doorashada oo guddida laga codsado guddidii taaliyadu ay diido waxay soo gudbinayaan guddida doorashada markaa guddida doorashada ayaa soo qabanaysa shirweyne aan caadi ahayn kaana waa ka baxnay waxa doorashadiinu waxayna wixina doorashada hanti dhowrka waxana arintaasi inoo daadihin doona cabdiraxmaan shiina cabdiraxmaan soo dhow بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وما هتسيهن جودي الدورشة وحا سيدو كله ما هداسي mid lamid mudan gudoomiye hore Rashiid Muuse dhamaan iyo gudidiisiba dhamaan xubnaha jaaliyada Norway halka ka soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantiin inaad ajiibteen ama aad yeesheen codsigayagii gudiga doorashada sanadka 2014 koontadeeda u gaarka ah hal qof bay guddida aynu samaysan doonaa ay ku yeelan doonaan ama xogayooda dhaqaalo saddexda odayo joogtadaan ugu talagalnay waxa weeyaan Xaaji Yuusuf waa number 1 Cismaan Gariig waa number 2 Maxamed Ibraahim waa number 3 saddexda oday waa la wada garanayaa baan u maleynayaa waa saddexda oday ee Midlands contingent-ka dhaqaalaha gelaya ama 5,000 ha bixiyo qof ama 1,000 ha bixiyo ama 100 ha bixiyo hantida dhigaalka ee shakhsiyaadka xubnaha ka ajaaliyadu ay bixiyeen dadka u ilaalinaya ee ka mas'uulka ah ee la aaminayo waa saddexdaasi ayaan u soo garanay shirweynihiina baanay ku xiran tahay inaad noo xasaasaan marka wax diidan ma jiraan baan u maleynayaa waa sax aad doorashada waxaa inoogu xigi doona doorashada guddida odayaasha oo Cabdi Kuuriye isagiina uu ku soo noqon doono mikrofoonka Cabdi Kuuriye ku soo dhawow mar labaad odayaasha waxaan idin sheegay in odayaashu way jiraan ayagaana is soo doortay nidaamka doonaha isku soo doortaan marka odayaashu waa 9 xubnood mar hadday soo gal yihiin anagu dee waxaan anagu ka oran karaa ma jirto sidaasaan anagu ku ansixina gacanta ciidii diidana gacanta taag odayaasha halka waxaa jooga uu taharu istaagay Maxamed Nuur Tahar baa ku jira waxaa ku jira cunta ku jira Maxamed Ibraahim baa ku jira Cismaan Gariig baa ku jira waa intay markaa halka joogta yaa kala maqan waka ninkaas sharafi ah inaan maanta iyadoo laga joogo 2 sano iyo xoogaa odayaashii meesha ii dhiibay iyaguna ay ila bariyayna ay meesha fadhiyaan waqti cid ku dhacaysaana aanay jirin oo ay halkay taagnayd nin waliba ogaa aan ma garanaysaaye war sideed oranaysaa raggii lahaa dee Kuuriya ka mid ahaa ama magac kala dooro laakiin waan ku dhiiraday haddaanu ragii la shaqayna maan qaban karayn anigoo qura maaha
waxa weeyaan rag adag baan haystay odayaal baan haystay xubnuha ku jiray jaaliyadda waqtigaa 11 qof bay ahaayeen isla labadii bilood ee ugu horeysay waxaanu gaarsiinay 130 jaaliyaddu waxay hoos ku jirtay 250,000 250,000 waxaanu bixinay waxaanu deedefaynaba ilaahay waa nagu guuleeyay waxa kaloo jirtay in ay xitaa magacyada dadku ay qaldanaayeen oo revisor Mareykan kuwa ugu waaweyn dalka laynoo diray oo inta magacyadeeni laga soo qaatay 40 qof 9 sax ka noqon waayeen maanta waxa ilaahay mahadiya in magaca yaala iyo adresska iyo qofkuba ay sax yihiin waxa weeye waxa kaloo ilaahay loogu mahadnaqaa amaanadii lanoo dhiibay waliba iyadoo anaga waxba lanoo dhiibin oo ay ceelaan ka soo saarnay waxaan filayaa dadka in yar baa intii soo celisay tiri istoorta hadara waa dhaqan inaynu ka dhiganaa muhiim ah oo qof kastaaba amaano dadka markuu hayo in uu ilaahilaha u soo celiyo way wanaagsantahay markaanu halkaa ka soo saarnay dhaqaalihii maanta project manigan ku shaqeynayay 300 ku buu maraya yani imisaanu kordhinay -250 to 300 aanu ku shaqeynay waxa naga dhiman dadkii baa naga dhinaa madashii baa naga dhinay madal dawladeed ma kirayso laakiin markaynu sidan aynu odayaasha iyo cid walba gacmaha isqabsano sida masaajidkeenu iibsan karnaa wada mar walbana inaynu saa ku wada shaqeynaa wanaagsan dad kale taariikhda sheegi doonta oo magaranaysaa wixii dadka ka hadhaa waa taariikh aqoon badan ayaanu intii wadnay gudiyo dibadba oo aanu sidaan imikana magaranaysaa aanu ku tala jirnaa hadday wadankii noqoto iyo hadday halkan noqotoba oo wadankii oo kale dee isbitaalkii wadnaha waxba noo socda aanu rabno inaanu magaranaysaa wax ka qabanno halkan waxa weeyaan muddadu way gaaban tahay inta badan waxaan filayay in muddada la kordhiyo laakiin haddana annagu dee intaanu joognay xafiisyada iyo albaab waliba way noo furmeen maanta ninka yimaadaa dee waxa weeyaan intuu albaabada mafaatiixdooda jabinayo ama la aaminayo ayaaba adag soo baad garan marka waxa weeyaan barashada iyo cooperationka aad la leedahay hay-adaha kama soo hadho oo ninkani wax ma soo celinayaa xisaab ma soo celinayaa report ma soo celinayaa waa in lagu bartaa annagu imka annagu halkaa iska fadhinoon shirna tegin bay dee noo soo dhacaan oo la yidhaha waraxaas soo doonta ama halkaa kaalaya waa connection wakti badan qaadanaya waad garanaysaa dee adduunkani siduu u shaqeeyo hadda waxaanu wadnaa inaanu iyagii soo casuulno tusna hawshaanu wadno waxaanu qornay inta caruur baahi qabta inaanu dabeetana ka furno meelo badan oo ay xaafadaada kugu timaado marka waxa weeyaan halkan dee kuma soo koobi kara wax badan waxaan ku leeyahay qof walowba codkaagaan marti kaaga ahay waana transparent website-ku wax waliba ku jiraa annagu wax kasta transparent baanu ka dhigaynaa waxaananu rabnaa inaanu dhaqankii odayaashu lahaan jireen inay bahashu dee magaranaysaa inagu baydu xukumaynaa inaanu dhallinyaradii overgang inaanu u gudbino oonu dhallinyarada aanu magaranaysaa ay iyagu jiilka dambe marka hore kole dad badan baa halkan fadhiya aanay garanayn marka anigu magacay horta cali baa la yidhaahdaa nin inta badan sportiga waxaa ku dhex jiray baan ahaa waxbarashadayda horta waxaan ka soo bilaabay waxbarashada iskuulka hoose ee baan iskuul leeyahay ilaa iminka jaamacad 3 sano oo jaamacada wax leeyahay IT-gaan bartay intaasna waxaan ka shaqeynayay runtii waxa leeyahay dhalinyarada baarin communal u shaqeynayay nimo la yiraahdo activity leader farin mandare baan ahaa ururo badan baan ka soo shaqeeyay oo kala nooca qaar ajnabi iyo qaar ahba Soomaaliya ururkan 30 sano oo waqti badan weeyaan dhalinyarada inta badan way dhalan waqtigii la aasaasay imika waa kuwa idinku soo galay idinkoo wada
haddaan horta ugu horeysa aan isku soo shanay waxay ahayd horta marka hore dee dhallinyaradii reer somalilan aada iyo aad bay ugu badatay dalka norway oo aada iyo aad bay u fara badan yihiin waayo anigu waan ku dhex jiraa waan ogahay waxyaalaha u baahan yihin o dhan baan ogahay dhallinyarada jaaliyadan dhalinyaro horta way ka seexatay runtii waxa ay u qabatay oo aan imika anigu ogahay horta ma jirto inta odayaakaas fadhiyana ugu yaraan mid walba 5 caruur ama 5 dhalinyaro u dhalay ururka horta waan akhristay waxyaaluhu wuxuu ku saabsan yahay wax walba oo la qaban karo waa urur qaban kara hadday activiteed noqoto hadday noqoto caawimin dadka Soomaalida laga qaato baanaha ee dawladdu ka qaadato hadday noqoto dhalinyaro si looga caawiyo wixii shaqo u baahan shaqo doonaya soo kanaada wax looga caawiyo hadday noqoto waxbarashada sida looga siiyo loo taliyo hadday wax walba waxa weeye ururkii wax uga qaban lahaa weeye muu ahayn ururku odayaasha iyo rag oo iska leeyihiin dalka waynu garanaynaa nidaamka oo dhan waynu garanaynaa systemka in badan baa joogteen waxa weeye dhalinyaro urur aan dhalinyaro ku haysan marka hore ma wasco meelna ma gaadho idinkuna runtii sanadka 3 sano oo dhan soo jiidanayseen imika aad baan ku farxay markuu Rashiid ka dhawaajiyay dhalinyarada soddon sano inagoo soo jirnay inaynu lukaal iyo goob aan isku nimaadno ma haysan waxa weeye waxa maskaxda galin weeyaan dad 30 sano 5 fooq baynu ibsan karayna haddaynu si caadi wax u wadno ama sida sax wax u wadno waxa weeye marka anigu waxaan oran lahaa dadka odayaasha horta lagama maarmo waa dadka u talinayay fikradda la imanayay na maamulayay waa iyaga idinkaanu ku dayaan cid kale kuma dayan qof waliba wuxuu ku dayanaya dadka waaweyn ka horeeyay anigu waxay ila tahay horta markaan eegay dib u dhac inaan ku socono wuxuu kale gudoomiyaha Rashiid wuxuu yiri ceel buu ka soo saaray buu yiri jaariyada waa runtii waa dhicin ceel ka soo saaray ceel uu ka soo saaray laakiin marka anigu runtii waxaan u arkaa in ceel haddana lagu riday waayo haddaynan goob lahayn aan waxba lahayn oo la is haysto dee wax anigu horumar aanu samaynay uma arko dhalinyarada nahay waxaanu noo qorshaysan hadduu ilaahay ka dhigo horta inaan goob la waayin oo goobta ugu horeysa ugu muhiimsan tahay dhalinyaro aqoon leh wax baratay fahansan systemka iyo nidaamka meel walba loo maro sida dhalinyaradeenu u hesho uga dheregto activiteetada dadka kale oo dhan helaan ay ka mid yihiin dabaasha ciyaaraha barafka tuusan fariidka kubadaha waxaas oo dhan waxa kale oo aanu isleenahay aanu ku tala jirnaa hadday noo suurto gasho inaanu xafiisyo la macaamilo dawladda ka furno lukaalka gudihiisa oo dadka ama waxa dhalinyaro badan oo soo baratay sida looladooda ambaana iyo waxyaalaha ama ka soo shaqeeyay caruurtan waalidada laga qaadanayo dad badan baa jira shaqooyin in loo tilmaamo u baahan waxyaalahaas oo dhan haddaba waqtigan waa iga dhamaaday waqtigaa inagu yar de marka waxaan leeyahay dee waa sanadkii dhalinyarada insha allah marka codkana sida hadda laga bilaabo inaan ka tanaasulo darajadii ahayd inaan isku soo sharaxo gudoomiyaha jaariyadda halkaas ay noogu dhamaantay saddexdoodiiba waxa markaa aynu iminka gudageli doonaa waa doorashadii iyo sida ay u socon doonto waxa weeyaan magacyada dadka ayaa la yeedhinayaa qofku marka magaciisa la yeedhiyo halkan uu kaadhka ku codaynayo uu ka soo doonan doonaa marka kaadhkuna kaadhku waa kaa ka baxeen Saciid laba isku soo hadhay marka waxa weeyaan Cabdirashiid Muuse iyo Salebaan Ali Maxamed Salebaan
markaa sida aad arkaysaan waxaad xariiqi doontiin qofkaad rabto iskuweerka ka horeeya ayaad u xariiqaysiin waxaana aad ku ridaysiin boxka halkan yaalla ayaad ku ridi doontiin halkaadna wuu ku soo xariiqayaa oo halkaasuu la gelayaa laakiin magaca qofka si aanay dad aan xubin ahayn aanay u codayn magacyada dadka xubnaha ah ayaa la yeedhin doonaa markaa waa inaad fadhiisatiin ood ismaqashiin ya saciid markaas saciid barre weerar wuu tanaasulay yaan la xariijinin aad maqla hadda codkaa waad khasaarisay haddaad saciid barre weerar u xariiqdo wuu tanaasulay labada isku soo hadhay waxa weeye cabdirashiid muuse ismaaciil iyo cali maxamed saleebaan waa labada u sarreeya haddaad labada meelood xariiqdana codkaagii wuu gubtay mid uun baad dooran kartaa codkaaga ku dooran kartaa marka waa one man one vote waana la xaadir cabdirashiid ismaaciil wuxuu helay 32 cod cali maxamed saleebaan wuxuu helay 48 cod sidaana waxay guushii ku raacday cali saleebaan maxamed waxaanan ku hambalyeynayna
السلام عليكم waxaa sharaf inoo ah inaynu maanta halkan si qurux badan ay doorashadii uga dhacday waxaan rajaynayaa inay taasi dhaqan inoo noqoto waan ku hambalyaynayaa cali inuu ku guulaystay waanan kugu soo dhowaynayaa waanan kula shaqaynayaa hawl badan baa kuu taalla waa xil weyn ayaa ku fuulay maanta xilkaa oo ilaahay ha kuu fududeeyo shaqada ugu horraysa caawa inaanad seexo weeye ta ugu weyni waxa weeyaan deadline-kaagu waa isniinta anuu ka qarin maayo siday qoladii hore samayn jirtay waan haniinayaa baasha waayo god baan ka soo saaray anugu ma doonayo inay halkii ku noqoto waxaasinimada ilaahay iguma abuurin mana wanaagsana in sidaa la yeelaana wanaagsan hadda waxaan guddida doorashada ka codsanayaa iyaguna ma seexan karaan waa inay rifaraadkii diyaariyaan rifaraadkii waa inay diyaariyaan waxay xaraynayaan isniinta ayaad xaraynaysaa wixii kaa dhibanay kale ee codsiye jirana waxyaala yarar baa naga dhimana annagana shaqaa noo taalla waanu raacinaynaa iyadana khudbadda waxaan siinayaa waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha cusub cali saleebaan cali maxamed saleebaan ku soo dhowa cali maxamed saleebaan horta marka ugu horeysa rashiid aad iyo aad buu mahadsan yahay talada iyo sida qiimaha iyo sharafta leh ee uu hadlay siduu sheegay horta hawl culus ayaa noo taalla haddaanu nahay dhallinyarada idinkana hawl culus baa idin taalla haddaa odayaasha tihiin iyo haddaa dadka kaleba tihiinba waayo dadaal aynu labadeena dhinacba ah ayaynu wax ku wadi karnaa anoo quri waxba ma wadi karayo waa inaan wada shaqaynaa odayaasha la wada shaqayn doonna waxaan u rajaynayaa insha allah inay si wacan noola shaqeeyaan haddaanu nahay dhallinyarada annagu wax walba waa ogol lahay wax allaale wixii talo ah wixii nala shaqaynaya wixii wax nala qabanaya waa welcome laakiin qofkii kale wax kale doonaya ama isle meesha usoo shaqo tag waxaanu kuu sheegaynaa annagu markaas soognaadka shaqada sida loo doono ayaanu kaa caawinayna adiga laakiin qof wixii dhallinyaro ama ha ahaato ama odayaasha ha ahaatee wax allaale wixii nala shaqaynaya ee doonaya shacabka inuu shaqeyn reer somaliland welcome baad tihiin fikrad ahaan shaqo iyo wax walba wax allaale waxaanu diinaynaa ma jiro waxbaynu wada doonaynaa waxa fiican inuu dhinac u wada jeesan haddaynu nahay waaweyn iyo haddaynu nahay dhallinyaraba meel walba markuu dadku meel u wada jeedaan bay meel walba dumiyaan meel walba wayn geli karnaa wax walba waa qabsan karnaa haddaynu israacno nolaado nabad ku waaraay wada nolaado nabad ku